qaar kamid ah qurbajooga ku dhaqan wadamada banaanka ayaa taageero soo gaarsiiyay qoys ku tabaalaysnaa degmada Dile ee gobolka Awdal. Jaaliyadaha soo gaarsiiyay deeqdan qoyskan danyarta ayaa hore uga soo jawaabay qayladhaan loo sameeyay qoyskan. waxaana ka qayb qaatay qayladhaantaasi dad muxsiniin ah oo ay kamid tahay Fuusiye Maxamuud. haddaba kaalmadan dambe ee soo gaadhay qoyskan ayaa loogu talagalay in loogu yagleelo hoy ay galaan oo ka duwan kii aqal Soomaaliga ah ee hore u gali jireen. waxaa halkaas ka hadlay xubno kamid ah muxsiniinta dadaalka ugu jirta sidii kaalmo loogu fidin lahaa, kuwaas oo ay kamid tahay Fuusiye Maxamuud iyo xubno kale ayaa ka waramaya sida qoyskani ugu diirsaday gargaarkii hore ee soo gaadhay iyo taageerada dambe ay ugu dhisayaan aqalka cusub. waxaana kamid ah hadaladoodii muxsiniintaasi. abaalka waxa iska wixii geystay ee ajarka soo geystay Ilaahay ka abaal mariyo. maantana waxaanu ku tala jirnaa inaanu guriga u dhisno oo wayniga arkay jaajuurkii adduunyada sibirkii inaanu rognay. marka waxaanu ka codsanaynaa dadweynihii hore u soo taageeray maantana way joogaan, marka inay naga taageeraan dhismaha gurigaasi looga saaro boolka qoyskaasi meel ay ku noolaadaana loo geeyo. inagana waxaan naga codsanaynaa inaad soo dadaashaan annaguna inaan waajibkaaga gudano insha Allah biidmillaahi kariim. lamarka loogu soo hagaajiyay Fuusiye Maxamuud 444 70 444 444 70 444 444 70 444. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والله يا dadkii soo caawiyay dadkaas waa salaamantii boqol iyo 14 quraanka kariimka ayaa ku salaamaya. waxaan kaloo idin raacinaya inay nolosha iyo nololaantu inta isu jiraan. dadka reerkii maalintii wax siinayseen ee wax tarayseen waa ka himiladeedu maanta waxa weeye in guri loo dhiso. maalintiina waxay ahayd si ay ku noolaadaan bay ahayd. marka waxaan idinka doonayaa walaalayaal Ilaahay ha idin barakeeyo. lacag meel taala lacag wax lagu qabtaa ka wanaagsan inaad dadka u soo kordhisaan oo u soo dhamaystirtaan. annaguna tacabkii baanu haynaa, idinkuna adduunkii baa haysan. adduun meel yaala waxa ka wanaagsan adduun wax lagu qabto. waayahay waa arkaysaan maanta Muuse iyo ciyaalkiisii iyo xaaskiisii waa arkaysaan. Ilaahay idinka jasaaysiyo idinka wax soo tiro wax siiyo. 114 quraankan 100 jeer oo idinku salaamaya. waxaan idin leeyahay waxa la yiri sadaqadu ma dhimato laakiin si qofku waa dhintaa. lama arag wali qof sadaqad saawdi bay nafta ka baxday. mid tukanaya dhimay oo la arag, mid hurdaa dhimay, mid xanuunsanaya dhimay, mid soconaya dhimay. يعني mid sadaqad dhiibayo wali dhintay oo gacanta ka dhiibaya lama arag. dhanka kalena waxa iyaguna kaalmo soo gaarsiiyay qoysaskii dhibtu ku soo gaadhay dhacdadii deegaanka Soomaaliya ee degmada Baki ee gobolka Awdal. qaar kamid ah qurbajooga ku nool dalka Sweden waxaana deeq lacageed ka soo gaadhay qoysaskaasi. qaar kamid ah jaaliyada ku dhaqan dalka Sweden kuwaas oo xubno ka socda jaaliyada Sweden ay kaalmada gargaarka gaarsiiyeen qoysaskii ay 3 qof kaga dhinteen dilkii Soomaal ee degmada Baki ee gobolka Awdal ka dhacay 5 December 2011. يا محمد اسماعيل هبلو dadkii lacagta lagu soo hagaajiyay waxaan ka ballan qaadnay lacagtaas oo $1 gaaraysi waxaan guddoonsiinay dadkii agoomihii ee aad u soo dirteen. waxaan cadeynaynaa yani inaan muxuu idinka jeednaa halka waxa sawirka muxuu u soo qaadnay inaan muxuu wixii aan dadkii taabsiinay iminkana muxuu naga guddoonsahay oo muxuu qofka loo soo diray lacagta iyo kuwa kale matalaysay. waan ka guddoomay walaalidina waan idinka guddoomay iyo walaalihii aad noogu soo dhiibteen ee idiga soo guddoomay annaguna waan ka guddoonay waan ina soo gaarsiiyay idiga iyo kuwii kale ina soo gaarsiiyayna waan ugu mahadnaqanaa waan idiga guddoonay waan idin ducaynanaa idiguna noo soo duceeyo. sida ay maanta u soo caawiyeen walaashooda ay dhibaatada ku dhacday iyo si ka badanba inay u soo caawiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. waayo reerku wuxuu ku dhisan yahay aabahu ku dhisan yahay. aabuhu hadduu meesha ka baxana waa dhibteeda ciyaal yar oo agoona jira. marka waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan reerka u soo caawiyaan loogana warhayo 3 reer. Ismaaciil Jaamac walaalkii Maxamed Xasan Cilmi iyo Cadnaan Cabdi Ibrahim iyo qolofka kale ka soo ururiyeen reer Suudaan. mana hal lacagtii koowaad ay soo diraan tii hore waxa ku soo hagaajiyay shacab shahar waxa uu soo siiyay raashid dadka marka oo loo keenay dadkii barakxay waa lacagtii labaad oo anigu mahad celinayna. Hashim Sheekh Umar Good, Somali Sat TV, Boorama.